Jeceshahay oo ma doonaysaa wajigaada si dabiici inaad u qurxiso qolofta, qaleelka, wasakhda, nabraha, haaraha iyo madmadowga aad si dabiici isaga qaado? Jawaabtaadu haddii hataa waxaan ku wadaa maaska yaroo naturaala si dabiiciyan wajigaada kuugu qurxinayo, madmadowga, haaraha iyo nabrahana kaa caawinayo. Ugu horeyn maaskan wuxuu kaa caawinayaa nabraha ayuu kaa caawinayaa wajigaada haddii uu mar walba nabarka u kaasoo baxa ama uu kugu soo laalaabto. Waa antibiyootig, waa qalajiye, wuu kaa qalajinayaa nabrahaas, bakteeriyadoodana wuu kaa dilayaa. Sidoo kale wuxuu kaa caawinayaa nabraha markay kaa baxeen, haaraha ay kugu reebeen ama ay kugu sababeen ayuu kaa qaadaya, wuu kaa nadiifinaya, wuuna kaa tiraya wasaqdaas iyo madowgii wixii kaaga tageen oo dhan wuu kaa cadeynaya, wuu kaa qaadaya. Haaraha daamanka nabraha ay kugu reebeen sanka korkiisa iyo meelahaas madmadowga waxyaabahaas oo dhanna wuu kaa nadiifinaya, wuxuu kaaga dhigaya wajigaada waji liishe dhalaalaya, iftiimayo, qurux badan. Iskiinkaadan wuxuu kaaga dhigaya iskiin caafimaad qabo, mar walbaba dhalaalaya, iftiimaya, aad u qurux badan ayuu kaaga dhigaya. Waa maski natural ah, si yaroo dabiiciyana aad u samaysan karta gurigaadii gacantaada. Nala daawo muuqaalka oo nala sheer garay. Bismillaah, awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. Maanta waxaan idiin wadaa muuqaal yaroo kooban. Insha Allah waxaan rajeynayaa inay igala faa'iideysan doontaan. Soo dhawaada. Hadaad igu cusub tahay soo dhawow janaalka subscribe video kambalelka furo si mar walba muuqaalada aan soo geliyo aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada. Waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Soo dhawaada asxaabteyda hore, asxaabteyda dambe. Waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaan like fara badan noo saartaan si walaalo kaloo fara badan u gaaro muuqaalkeena. Waxaan halka ku haystaa waxay tahay moringa powder ayaan ku haystaa. Moringa powder waa alaab daawo ah. Waxaad ka helaysaa meelaha dhirta mudaawaadka waxyaabahaas lagu iibiyo aad ka helaysaa. Waa antibiyootig, waa qalajiye, daawo ahaana waa loo isticmaalaa. Oo qof walba inuu garanayo ayaan rajeynayaa. Marka alaabtan waxay kaa caawinaysaa inay wajigaada nabraha iyo haaraha ay kaa qaado, ay kaa qalajiso, bakteeriyadeedana ay kaa disho, wajigaadana kuu nadiifiso, qolofta iyo wasaqda iyo madowga kaa saaran oo dhanna ay kaa qaado. Iskiinkaadana iskiin caafimaad qaba ay kaaga dhigto. Hadduu iskiinkaada khafiif uu kaa noqdana iskiinkaada ay ku adkayso ay qurux kaaga dhigto. Sidoo kale waxaan ku darsadaa hal qaadno oo yoogar balayn ayaan ku darsaday. Yoogarka wajiga ayuu ku qaboojinayaa, midabkana wuu ku furayaa. Yoogarka waa caano garoorka. Maasha Allah. Alaabtan aad iyo aad ayay ku caawinaysaa wajigaadana qurux ayay kaaga dhigaysaa. Nabrahaas iyo madmadowgaas waxyaabaha wajiga kaa saaran oo dhan iyo qoloftaas iyo wasaqdaasna way kaa qaadaysaa. Sidoo kale waxaan kusoo darsaday malab ayaan kusoo darsaday, malab saafi ah. Maasha Allah, malabkan asigana waxyaabaha wajiga lagu qurxiyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Waa daawo asigana lagagama sheekeynaya faa'iidadiisa iyo macluumaadkiisa inaad taqaanid ayaan rajeynayaa. Marka saddexdan shay markii aad isku darsato waxay kaa caawinayaan. Waxay kaa caawinayaan waxay tahay inay wajigaada waji qurux badan, iftiimaya, dhalaalaya, cad kaaga dhigaan. Haddii aad leedahay nabar, haddii aad leedahay haar, nabraha markay kaa ba'aan madmadowga, haaraha iyo wajiga waxa ay kaaga tagaan oo dhan way kaa qaadayaan, way kaa nadiifinayaan, wasaqdaas oo dhanna meesha ayay ka saarayaan. Haddii markaas nabarkaada uu cusub yahayna sidoo kale moringada way kaa dilaysaa. Waa antibiyootig qalajiye waaye. Waxyaabahaas oo dhanna way kaa qalajinaysaa, way kaa nadiifinaysaa. Wajigaada way kuu cadeynaysaa, qurux ayay kaaga dhigaysaa, dhalaal iyo iftiimay kuu siinaysaa. Sidoo kale haddii dhabanadaada markaas ay labeentii iyo waxyaabihii oo dheehi oo kaa dhintay, alaabtan way kuu soo celinaysaa. Dhabanadaada dhabana labeen loo aad u qurux badan ayay kaaga dhigaysaa. Iskiinkaadana iskiin caafimaad qabo, qurux badan ayay kaaga dhigaysaa. Haddii uu kaa qafiifay, maqaarkaada uu qafiif uu kaa noqday, maqaarkaada maqaar caafimaad qabo, daaweysan, tayeysan ayay kaaga dhigaysaa. Haddii aad tahay kiimika iyo haddii aad tahay natural labadaba waad isticmaali kartaa oo waad marsan kartaa. Kaliya wajiga ayay ku qurxinaysaa. Qoloftaas iyo madoobaadkaas iyo wasaqdaas iyo nabrahaas iyo haarahaas ayay kaa qaadaysaa oo ay kaa nadiifinaysaa. Wajigaadana si dabiici ayay kuugu cadeynaysaa, kuugu qurxinaysaa, midabka ayay kuu furaysaa. Kalarkaada kalar qurux badan ayay kaaga dhigaysaa. nabrahaas iyo waxyaabahaas daamishka ay kuu geysteen madmadowgii wixii wasaqdii daldaleelada kaaga jiro ee kaaga tageen way kaa nadiifinaysaa, welibana si dabiici ayay kaaga nadiifinaysaa, kuugu cadeynaysaa, kuugu qurxinaysaa. insha Allah waxaan rajeynaa inaad nagala faa'iidaysateen muuqaalka nala sheer garaya asxaabtii kale la wadaaga si markaas walaalo kaloo fara badan ay noogu soo biiraan.
muuqaalka like fara badan noo saara si walaalo kaloo fara badan oo u gaaro muuqaalkan ayagana ay uga faa'iidaystaan. Wiilasha way isticmaali karaan, gabdhaha way isticmaali karaan. Qof walba oo nabar iyo haar wajiga ku qabo wuu isticmaali karaa. Haarta, nabarka qof walba wuu kasoo baxaa, rag iyo dumar ma kala hal, waa alaab dabiici ah. Qof walbana wuu isticmaali karaa. Haddii aad tahay rag, haddii aad tahay dumar, labadaba waad isticmaali kartaa. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkayga la faa'iidaysateen. Asxaabtiina kale la wadaaga oo u sheer gareeya. Janaalkana kusoo dhawaada oo ka faa'iidaysta waxyaabaha dabiiciga naturaalka ah.